بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت انا بلابن عشر كان مهم كأه waxaan ugu mahadcelinayaa walaalaha ku jira channelka kuwa ku soo biiray qof kasta oo ku jira channelka qof kasta oo share gareeyay videoyada aan soo diro qof kasta oo like ii saara qof kasta oo comment ii soo qoray dhamaantiin waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum. haddaad ku cusubtahay nagu soo biir insha Allah taala. maanta casharkan ka hadlano weeye waa cashar ku saabsan teknolojiyada cryptocurrency-ga iminka adduunka qabsatay. arday badan oo iyo asxaab fara badan oo iga codsaday inaan u sameeyo video qaabka looga faa'iideysto ama qaabka loo gado ama qaabka maaragtay lacagahan loogu soo wareejiyo bangiyada ayaan ugu talagalay videogan inaan maaragtay u sameeyo. marka insha Allah ka faa'iideysta oo la share gareeya asxaabtiina. barakallahu fiikum. marka waxaan kaloo oran lahaa طبعا channelku ma aha only channel technology kaliya ku saabsan, waa channel wax kasta ku saabsan. haday tahay videoyada maaragtay ku saabsan caafimaadka, videoyada ku saabsan maaragtay taariikhaha maaragtay kala duwan, waana channel de uu cusub yahay wali uu soo koreeyaa. marka insha Allah in laga faa'iideysto waa muhiim weeye. وانا في عنده قفكي انه كلا بتبدله مواضيع مقطع هل موضوع ولا ما قبصده اي موضوع ومده انفعه وحوي ان يوتيوب channel kala soo geliyo waa muhiim weeye si umadu uga faa'iideysto. marka aynu bilowno casharkeena insha Allah. maalintaas waxay ahayd maalinta dadku aad uga faa'iideysteen, dadka ka ganacsada cryptocurrency-ga aad iyo aad uga faa'iideystay. marka waxaad sameynaysaa مثلا exchange-yada aad ku haysatid coin-kaaga wad arabtida aad gadid ayaad maaragtay tagaysaa. for example exchange-ka Binance oo kale ayaynu ka sameynay trading-kii caawa si fiican buu suuq u socday. marka xoogaagii ribxigii laga helay ayaan doonayaa inaan u soo wareejiyo Coinbase. Coinbase waa exchange aad u fiican oo moqtay lacagaha lagu sarifan karo oo lagu wareejin karo oo bangigaaga aad u soo wareejin kartid. marka Coinbase baynu galinaa. markaan Coinbase galno waxaan sameeynaa Ethereum ayaa rabaa inaan dhinaca ka soo wareejiyo Binance. marka barcode-ka xagga sare aad ku aragtaan oo calaamadeeyay barcode-kaas ayaad ku dhufanaysaa si aad wallet-kiisa u raadisid. okay, wallet-kii waad keentay waad copy garaynaysaa wallet-ka OX ku bilowma wax kasta oo ku bilowma OX oo Ethereum ka yimaada waxa weeye waa wallet ID-ga OX ku bilowma coin-anka ama tokenada ka hoos shaqeeya Ethereum blockchain-keeda waxay ka bilowmaan OX waxa weeye ERC20 smart contract. طيب waa copy garaynay copy buu ku yiri. marka waxaad tagaysaa markiiba exchange-ka Binance meeshii aad ganacsiga ku samaysatay coin-ka aad rabtid inaad iibisid ayaad u soo wareejinaysaa exchange-ka Coinbase. marka taa isi xusuusta wallet ID-ga aynu sii copy garaysanay taa xusuusta laana waynu u soo noqonaa mar dhow. okay, waa kan waxaad raadinaysaa coin-kii waxa weeye Ethereum baad raadisay. okay, waad iibinaysaa Ethereum markaad ku iibinaysaa waxaan rabaa wax la qiimo ah $500 inaan ku iibsado Ethereum. hadda waa aragtaan meesha cas bidixda ah dadka iibinaya sell meesha green-ka ah isla dhinaca bidixda waa dadka iibsanaya green. waa si maaragtay cajiib ah bay u dhaqaaqaysaa lana habeenka dadku aad bay moogta uga ganacsanayeen meeshaas. waa aragtaa dhaqaaqa $500 ayaan ku iibsaday Ethereum. waa wax la qiimo ah 3 xabo oo Ethereum ah. orderkaygaan bilaabayaa. okay, orderkii wuxuu yiri created oo order created خلاص orderkii waa hagaagi. kadib waxaan sameynaynaa dad oo kale waxaan ku tusay transaction-adii aan sameeyay isla maalinta. marka waxaan sameynayaa waxaan raadinayaa qaabka loo diro meesha laga diro Ethereum. exchange-kaaga waad gelaysaa waxaad raadinaysaa meesha ay ku qoran tahay withdrawal. waxa weeye laba qaybood waa withdrawal iyo deposit. labadaas muhiim ah. withdrawal marka aad u diraysid dhinaca kale ee Coinbase for example waa loo diriyay wuxuu yiri coin-ka aad rabtid inaad ku samaysid withdrawal coin-kii ii raadi Ethereum baa for example Ethereum-kii waan qoray magaciisa wii soo baxay wuxuu yiri 3 xabaad ku haysataa oo Ethereum ah. 3 xabo waxaan u dirayaa Coinbase. xusuusta wallet ID-ga markii dhinaca ka soo qaaday waa ka ERC20 aan ku qoran tahay isagaan doortay meesha ay ku qoran tahay address-ka ayaan maaragtay ayaan rabaa inaan maaragtay geliyo wallet ID-ga. waa ka halkaas aan geliyay oo waadax weeye. marka
maximum baan geliyay 3 coin oo Ethereum ah. Withdraw baan samaynayaa. Marka withdraw sameeyo wuxuu ka dalbanayaa lambarka mobilkaaga code buu ku soo dirayaa si aad mobilka lambarkaaga ugu soo diro. waana security yani laba security ay leedahay. security ugu horeeya waa inaad mobilkaaga ku soo dhacdo. hadda mobilkaaga ku soo dhacayo waa kaygii waqti mobilka Axmed weeye wuxuu ku dambeeyaa 426 wuxuu ku bilaabmaa 0747. asxaabta igala xiriira WhatsApp kana lambarkayga waa yaqaaniin. okay text buu soo dirayaa. marka uu text ka soo diro waa ka lambarkii 161589. marka lambarka geliyo isla markiiba وحوري وانتري لكن وانا تكتا ايميل كاغو كلياي confirmation كسمه sababtoo ah inuu secure yahay ku ganacsaday laba jeer buu ka hadlay mobil kana ii gali email kaagana tag oo confirmation kusame macnaha wax aan la hadi karin weeyo secure ah qof مثلا meel kale jooga duu jabsado account kaaga warigi waxa kama qaban karo laana email kaagana ma haysto mobil kaagana ma haysto marka waka email kii baan furay balance buu yiri wada ragtaas oo ku tobanka habeenimo waan diray wuxuu yiri confirm buu yiri confirm withdrawal wariga inuu say confirm تقول فنيسا خلاص هذا وقت يودو بانتاي 8 مريد 8 مريد si uu coin kaas u gaaro exchange ka Coinbase marka waka email kii waka adamaatay shakadii hadda waxa suuqina waka process halka aad aragtaan wuxuu ku tusayaa processing 0 to 12 markay noqoto 12 of 12 ayuu coin kaagu u guurayaa dhinaca kale ee la dhaho exchange ka kale Coinbase hadda aragtaan وسوينا وحوي طبعا وان كلا غوغوي تومر بيقات تومر دان غدو من فيديو غدان markii uu wareegay markaas ayaan videoga complete ku sameeyay hadda aragtaan waka 3 ethereum ah ayuu wareejiyay طبعا hoos hadan wareego waa transactionadii barigi hore aan sameyn jiray in badan fikradan ka siinaya coin kala duwan ethereum bitcoin dashcoin litecoin ripple cardano maaragtay muxuu ahaa badan لكن كل وقف عن لقى استوقت جاء سوق لو حي هاي إثيريوم كإثيريوم أدنو كلا بيا يجري طيب وكا تاريخ دولار وركتان وأفريتون كي جانوري وكوي تون كي هبينيمو واندري مركا إمي كحن سميننا وكا بروسيسنج بكلية هاي وسوق النحوجا إلى أنت أماركتي وجودو كوينبيس ترانزاكشن دي وكا هدا هنقول لنا كوينبيس بينو قال له عندنا العقد مسؤول عليه مسماه waxa ku jira $757 oo suuqina inuu meesha Ethereum wax ku soo dhacaan reedkiisuna waa maanta $160 reedka Ethereum lacagta wata way kordhay macnaha $500 iyo dollar ku soo dhacday tawataas $500 waa ku kordhayba ajiib marka dollar uu kacay uu dagay intuu sii kacay dhici karta in wax lagu sii daro oo marti ribxi ah waa suuq weeye طيب hadda waxaan sameeynaa iminka waxaynu doonaynaa inaynu lacagtan ku soo dhacday Coinbase-ka inaynu u wareejino bangi. طيب طريقada ugu fiican waa maxay? waa aragtaan u kacaya. طريقada ugu fiican weeye inaad lacagtaada aad ama Ethereum-ka marka ugu horeysa sameynaysaa waad iibinaysaa sell waad iibinaysaa si aad lacag pound ah ugu bedeshid waxa uu ku tusayaa Ethereum sell buu ku yiri orderkii baad bixisay waxaad u wareejinaysaa pound buu isu bedelayaa waa kaas أول حوجة بكتير هذا أنا أنتي وأنا كسر درة ويا ربضت حوجة مركوا أركتان بريتش باوند بيسو بدري كتير والدك كوينبيسك كديم عندنا إن العقدة إن نوريجنه وسو حقيقة أو بنجي أكم كشبنا سير العقدة ده هبين كي تشبك كوجرته طريقة ده وفي حوي إن دلت عامشيد باي بال كأكاونت باي بال وإن فرطة very important باي بال كنا secure دوينها أو دمرك استهديكتي طيب العقدة وندريدونا حاجة ودرينا حندرينا PayPal withdraw baad qoraysaa aad dooranaysaa withdraw طبعا transaction inuu ku hor aan sameyn jiray bardo marka aan PayPal-ka aan u wareejin jiray ama bangiga straight u wareejin jiray wasamarta sold bought withdraw markaad iibsanaysid ama maaragtay aad soo saaraysid waxaad la tacaamulaysaa Coinbase marka waynu dooranay 575 kaliya ayaynu rabnaa inaan u wareejino withdraw xagee geynaysaa waxaad u raraysaa PayPal kaaga waka email kaaga waka account bangiga san raba 9130 ugu dambayso inuu soo xawilo laakiin khatwada PayPal ka ayaan ku bilaabaya marka hore okay inta rabtaa ku leeyahay PayPal ku waxaan doonayaa lacagta 575 kaliya inaan u raro PayPal waxa ajiibka weeye daba marka aad rabtid inaad withdraw ku samaysid fiiga uu ka qaadanayo PayPal ku waa 0 waa ku soo bank fee waa 0 lacagtina waa intaas
طيب confirmation baa sameeyey go to the account ku noqonaya account-ki lacagtii ka baxday oo aragta straight away lacagtii waa ka baxday lacagtii xagee tagtay PayPal bay tagtay wakaas way soo yaraatay 505 way ka baxday lacagtii isla minute kaba yar second 5 second lacagtaadii waxay gaadhay PayPal bay ku dhacday account-kaaga PayPal waka waqti reedkiisu markuu waa 164 halkaas dadku ka ganacsadaan qofba moogta waa inta uu okay PayPal-kii waa naga soo galay 575 awal waxa ku jiray 0.88 baa ku jiray marka PayPal-ka lacagta u diin maayo within a second 2-3 second waa inuu ka saaraa waa inuu bangiga waqtiga bay qaadanaysaa kaba yar yumkin half an hour okay hadda waxaan sameynaa waxaan lacagta taariikhda horta time-ku taariikhdu waa hab islaayinkii weeye 12 habeenimo dushana eeg waxa weeye January 14keedii 2020 waa isla 12kii shaqadan oo dhan waxa laga yaabaa inay qaatay 20 minute intan ka soo saariyay Binance haddana u wareejinayay Coinbase haddana gadayay haddana bangigayga all together waxa dhici karta inay noqoto 30 ilaa 40 minute kaba yarba okay time-kina waa ka lacagtii wataa 570 hadda ayaan sameynaa withdraw the money lacagta waxaan u wareejinaa bangiga intee rabtaa waxaan doonayaa 575 pound inaad igu dirtid oo u wareejisid bangigayga lacagtii waka hadaan qorayaa withdraw 575 fiigu waa free saan idinku sheegay marka waxbuu ku wareejinayaa bangigayga 9130 HSBC bank buu ku wareejinayaa dan hawshu waa dhamaatay you have withdrawn buu yiri lacag baad moogtahay ka saartay 575 waka waxa ku soo noqotay 0.88 intii ku jirtay PayPal-ka ay ku soo noqotay halkan wuxuu ku tusay receiptkaaga waabaka wuxuu ku leeyahay intaas ka soo saartay waxay ku dhacday bangiga pending yar bay ku gaaraysaa waqtiga time-ka inaga waa in yar shamri baa u dhaxaysay oo badna خلاص halkaas ay gashay marka qaabka looga faa'iideysto Coinbase iyo exchange-da waaweyn ee caalamiga طبعا waad ka soo rari kartaa lacagta waad ka soo rari kartaa any exchange ama noqoto Bittrex ama noqoto Poloniex ama noqoto Kraken ama blockchain ama Coinbase any exchange oo aad la tacaamulshid ama KuCoin any exchange oo aad la tacaamulshid waad u soo rari kartaa Coinbase waad ka ganacsan kartaa hadda waad ka baysan kartaa marka insha Allah intaas ay naga tahay daawadayaasha sharafta badan insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaad ka faa'iideysteen casharka hana ilaawina qofkii aan channelkan ku cusub inuu subscribe saaro gambaleelkana taabto si wax kasta cusub ku soo gaaro insha Allah videodan share gare walaalaha moogtay daneynaya cryptocurrency iyo technology-dan rabayna ka faa'iideystaan ardayda la share gare insha Allah دي لايك انا صار دي مقطع فيديو كو عجبيه لايك انا صار ان شاء الله تعالى سي channel كينو مقطع ادو فافو حصوص ترى channel كان channel كيني ويه وكيني اتكفدستان wax kasta oo soo gudbiya insha Allah ma kaliya oo technology-da lacagahan iyo waxyaalaha kan channel ka gudista baan baada gala waxyaabo badan kale doontaan ku saabsan sawaan caafimaadka ama waxyaalaha moogta islaamiga ku saabsan umuman waa channel moogta mudu ka faa'iideysto insha Allah ta'ala aad ugu mahadsantihiin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk